دولة بنتلان waxay ka digaysaa in geedi socodka nabadda Soomaaliya laga leexiyo wadadiisi waxa soo baxaya muuqaalo kala duwan oo muujinaya in kooxo dana gaar ah leh ay isku dayayaan in ay wadada ka leexiyaan geedi socodka nabadda Soomaaliya dowladda Puntland mas'uul kama noqon doonto wax kasta oo is-hortaag iyo carqalad ku noqon kara dhamaystirka xilliga kala guurka dhamaystirka qabiyo qoraalka dastuurka federaalka Soomaaliya waxa ku jira qodobo dib loogu noqday oo la saxiixay ayna isku raaceen saxiixayaashii ku kulmay Addis Ababa 23 bishii shanaad 2012 wararka sheegaya in guddiga madaxa bannaan ee dastuurka ay dib ugu noqon ku sameynayaan dastuurka federaalka waxay dib u dhac iyo waqti lumis ku tahay geedi socodka nabadda Puntland waxay ugu yeeraysaa saxiixayaasha roadmap iyo beesha caalamka in ay taageeraan dhamaystirka qodobada ka harsan khariidada nabadda iyo in lala xisaabtamo cid kasta oo isku dayda in ay waxyeelayso heshiiskii ay ku gaareen Addis Ababa 23 bishii shanaad 2012 dowladda Puntland waxay mar walba u heelan tahay dib u dhiska dowladda Soomaaliyeed oo ku dhisan nidaamka federaalka dowladda Puntland waxay taageeraysaa khariidada nabadda oo lagu soo afjarayo marxaladda kala guurka 20 August 2012 laguna soo dhisayo hay'adihii dowladda Soomaaliya iyadoo la tixraacayo dastuur qaran oo federaal haddaba markaan aragnay jadwalka loo marayo heshiisyadii roadmap ee saxiixayaashu ku saxiixeen Muqdisho 6 September 2012 markaan qiimeynay mabaadi'dii ka soo baxday Garowe 1 iyo Garowe 2 oo ay martigelisay dowladda Puntland December 2012 iyo February 2012 markaan aqoonsanay heshiiskii ay ku saxiixeen madaxda Soomaalidu gaalkacyo iyo Addis Ababa markaan tixgelinay qabiyo qoraalka kadib markii lagu daray soo jeedimihii saxiixayaashu oo la mideeyay dowladda Puntland waxay aqoonsan tahay in wixii isbedel ah oo lagu sameynayo dastuurka ay u idman yihiin guddiga farsamada ee Addis Ababa la isku raacay una gudoomiye u yahay mar walbana goobjoog u yahay wasiirka dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya ugu dambeyn dowladda Puntland waxa u dhameystiran xubnihii uga qayb gali lahaa ergooyinka saxiixaya dastuurka ansixinaya dastuurka waxa sidoo kale Puntland diyaar u ah ergooyinkii uga qayb gali lahaa baarlamaanka federaalka wabillahi tawfiiq waa dhameystiran ma santi